kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka kuwa ugu doorka roonna waxaa qayb ka noqonaya xiisada Djibouti iyo Somaliland oo kasii daraysa xilli Djibouti oo markaan go'aan la yaab leh qaatay. Waxaan kula wadaagi doonaa go'aanka la yaabka leh markaan ay qaadatay dowladda Djibouti. Dhinaca kalena qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya Imaaraadka oo shaqaalihiisa kala baxaya qaybo ka mid ah Soomaaliya. Waxaan kula wadaagi doonaa goobtii ugu horeysay oo markaasi ay ka baxeen shaqaalihii Imaaraadka. Dhinaca kalena qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya Israa'iil oo markaan walaac xoogan ka qabta faragelin toos ah oo markaan Masar ay ku hayso gudaha Soomaaliya. Qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya ismada dhaqanka daarood oo markaan mowqif adag ah ka qaatay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland. Qodobadaas iyo sidoo kale qodobadii nagu soo kordho ayaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal, balse qodobadaas oo dhameystirantaan kula wadaagin haddii ay tahay marka kugu horeysaan soo boqoto fadlan YouTube-kana subscribe saar, kamalka furo muuqaalkana like saar, wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faalada noogu reeb. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena. mahadsanid daawada aynu ku bilowno. xiisada Djibouti iyo Somaliland ayaa kasii daraysa xilli Djibouti markaan go'aan la yaab leh qaadatay. xiisada siyaasadeed ee u dhaxaysa Djibouti iyo Somaliland ayaa gaartay meel sare kadib markii dowladda Djibouti ay si adag uga hortimid aqoonsiga Israa'iil ay sheegtay inay siisay maamulka Somaliland. tan iyo markaasi Djibouti ayaa Somaliland ayaa qaaday tallaabooyin muujinaya sida uu xumaaday xiriirka labada dhinac, iyadoo maanta hay'adda socdaalka ee jinsiyadda Djibouti ay gabi ahaanba joojisay daabicistii baasaboorradii ugu badnaa oo ay lahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland. in ka badan 1,400 oo baasaboor oo Djibouti ah, kuwaasi oo ay codsadeen dad isugu jira xildhibaano, odayaal dhaqan iyo suxufiyiin caan ah oo ka soo jeeda maamulka Somaliland, ayaa guud ahaanba ay kasashay dowladda Djibouti. baasaboorka Djibouti ayaa muddo dheer ahaa midka ay adeegsanayeen madaxda iyo siyaasiyiinta Somaliland si ay ugu fududaato isku socodka caalamka, maadaama kan maamulka Somaliland aan la aqoonsanin inuu yahay weli wadan. arrintan ayaa muujinaysa heerka khilaafka labada dhinac, iyadoo Djibouti ay sii kordhisay cadaadiskeeda ay saarayso maamulka Somaliland si ay u muujiso taageerada ku aadan midnimada Soomaaliya, xilli ay meel adag iska taagtay aqoonsiga ay sheegtay in Israa'iil inay aqoonsatay maamulka Somaliland. xukuumadda Somaliland ayaa dhowaan dhankeeda joojisay duulimaadyadii diyaaradda dalka Djibouti ee lagu magacaabayay Djibouti Air Djibouti. diyaaradani ayaa 4 maalmood isbuuc kasta duulimaad ka sameey jirtay garoonka diyaaradaha ee Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Somaliland ayaa talaabadan qaaday iyadoo ka jawaabaysa go'aan ka soo baxay dowladda Djibouti kaasi oo markaasi lagu xiray xafiiska Somaliland ee ka furnaa dalkeeda. xafiiskan oo furnaatan iyo markaasi sanadkii 2012 ayay dhowaan dowladda Djibouti sheegtay inay albaabada isugu laabtay sababo la xiriira aqoonsiga ay Israa'iil siisay Somaliland, kaasi oo si adag ay u diiday dowladda Djibouti. Djibouti ayaa sidoo kale sheegtay in aqoonsigan uu ka hor yimid xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah, isla markaana ay si cad ugu soo horjeesatay in Somaliland ay ka madax bannaanto Soomaaliya. Djibouti ayaa ka mid ah dowladaha dariska ah ee sida adag ugu hor yimid go'aanka Israa'iil ku aqoonsatay Somaliland, waxayna garab istaagtay Soomaaliya iyadoo dhex joogta golaha ammaanka si adagna ayay u difaacday madax bannaanida iyo sidoo kale midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidee u aragtaa in khilaafka Djibouti iyo Somaliland uu haatan gaaray meeshii ugu xumeed? qodobada kalena waxaa qayb ka noqonaya markaasi Imaaraadka Carabta oo markii ugu horeysay shaqaalihiisa kala baxay qaybo ka mid ah Soomaaliya. wararka naga soo gaaraya Boosaaso ayaa sheegaya in maanta Imaaraadka Carabta uu bilaabay inuu magaaladaasi kala baxo shaqaalihiisa ka joogay halkaasi sababo la xiriira fulinta go'aan dhawaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo joojisay wada shaqayntii markaasi ay la lahayd Imaaraadka Carabta. ila wareedyo xilkas ah ayaa markaasi inoo xaqiijiyay in maanta garoonka Boosaaso laga dhoofiyay shaqaale intooda badan ka soo jeeda dalka Colombia, isla markaana u shaqaynayay Imaaraadka Carabta oo xiriir xoogan la lahaa maamulka Puntland. raritaanka muuqda iyo qalabka iyo markaasi shaqaalaha Imaaraadka ee Soomaaliya ayaa calaamad u ah sare u kaca markaasi ku yimid xiisada iyo suurtagalnimada in Imaaraadka dib u haween uu ku sameeyo joogitaankiisa Soomaaliya, inkastoo weli saameyn xoogan uu ku yeelahay maamul goboleedyada dalka ka jira. duulimaadyadani ayaa biloobay in markaasi tallaabo ballaaran oo Imaaraadka uu ku raranayo qalabkiisa Soomaaliya kadib markii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay dhowaan laaleen heshiiskii amni iyo midkii difaaca ah oo horey ay ugu galeen Imaaraadka Carabta.
Arrintan ayaa sidoo kale daba socota warbixino sirdoon oo sheegaya in diyaaradaha militari ee Abu Dhabi ay leedahay in ay si aan fasax ahayn ugu soo gashay hawada Soomaaliya, taasi oo waday hogaamiyaha golaha ku-meel gaarka ee markaasi koonfurta Yemen, Andrews al-Suhaydi, oo markaasi baxsada xilli la filayay inuu tago wadahadallo markaasi la qorsheeyay inay ka dhacaan Sacuudi Carabiya. Go'aankan waxaa kaloo markaasi uu soo afjaraya siyaasadda isbarbaryaaca ee markaasi dhibaatada ugu weyn ee haysatay Soomaaliya 10kii sano ee lasoo dhaafay, waxayna ahayd in dowlad goboleedyada qaarkood ay u dhaqmayaan in sidii dowladda madax bannaan oo xiriir toos ah la sameysanayso dalalka shisheeye. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka markaasi u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda ku jira maalmihii ugu adkaa, iyadoo dhowaan Soomaaliya ay si toos ah ula safatay boqortooyada Sacuudi Carabiya oo taageersan hogaaminta arrinta gudaha Yemen. Sacuudi ayaa si weyn u taageerta midnimada Yemen. Qodobada kale markaasi waxaa qayb ka noqonaya markaasi Israa'iil oo haatan markaasi walaac xoogan ka muujinaysa in Masar uu markaani faragelin toos ah ku hayo gudaha Soomaaliya. Warbixino ay baahisay warbaahinta Israa'iil ayaa ka digtay in Masar ay ballaariso joogitaankeeda militariga iyo midka amniga Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Tallaabadan ayaa lagu sheegay mid jawaab toos ah u ah waxa ay Qaahiro u aragto saameynta sii kordhaysa ee Israa'iil ay ku leedahay gobolka. Sida lagu sheegay warbixin markaasi uu baahiyay telefishinka ku hadla afka Carabiga ee magaciisa loo yaqaan 24 News, Masar waxay sare u qaaday lugta ay ku leedahay arrimaha Soomaaliya kadib markii Israa'iil ay aqoonsatay maamulka gooni-goosodka ee Somaliland. Dhaqdhaqaaqyadaasi aqoonsiga waxaa la sheegay in hay'adaha amniga Masar ay u arkaan khatar toos ah oo markaasi ku wajahan xasiloonida gobolka iyo danaha istiraatiijiyadda ee Masar. Ilo dhanka amniga oo Israa'iiliyiin laguna xusay warbixinta ayaa sheegay in Masar ay xoogga saarayso taageerada dowladda madaxweynaha markaasi uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud. Ujeedada Masar ayaana lagu sheegay ilaalinta midnimada dhuleed ee Soomaaliya iyo tan ka hortagga cawaaqib xumada dhanka amniga ah oo ka dhalan karta dhaqdhaqaaqyada Israa'iil ee Geeska Afrika. Warbixintan markaasi waxaa intaasi ku sii daraysa in saraakiisha Masar ay aaminsan yihiin in aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland uu qayb ka yahay qorshaha ballaaran oo Yuhuuddu ay ku doonayso inay saldhig istiraatiijiyo ka samaysato agaarka marinka Baabul Mandab iyo sidoo kale Badda Cas, kuwaasi oo ah goobo halbowle u ah amniga badaha ee Masar. Waxaa kaloo jira cabsi ay Qaahiro ka qabto inay Israa'iil ay sii xoojiso iskaashiga ay la leedahay Itoobiya. Xiriirka markaasi Masar iyo Addis Ababa oo aad u xun yahay sabab la xiriira biyo-xireenka iyo sidoo kale arrimaha webiga Niil. Warbixintu sidoo kale waxay xustay in Masar ay bilowday inay ciidamo iyo sidoo kale la taliyayaal militari ay u dirto Soomaaliya horaantii bishii sanadkii 2014 kadib heshiis difaac ah oo dhexmaray labada dal. Wixii intaasi ka dambeeyay, Qaahira waxa ay Muqdisho markaasi siisay taageero amni iyo mid saad ah, gaar ahaan dagaalka ka dhanka kooxdaasi Al-Shabaab.